soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ku ilaaliye سعدال قرحونيو سناني عدالة بان سعدال قرحونيو سناني عدالة بان أما وذا سوقيناي سردينكا قوى شرفي سهانكا قوى قولي سعدالكا قوى نبدي سفركا قوى قيري يا سماد برواقادي soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow umataan sanada badan silciyo dib soo marayay umataan sanada badan silciyo dib soo marayay adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow adwakina tagdarane tagerowanigine Somaliyey toso isku tiirsadaye adwakina tagdarane tagerowanigine marweyne mudanayaal dhammaantiin waad salaamantihiin waxaan caawa halkan xaflad soo dhaweynaha ugu samaynaynaa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi rugcada ah oo in muddo ah ka soo shaqeynaya dalka Soomaaliya intaynaan u gelin barnaamijkeena qodobadiisa iyo waliba khudbadaha waxaan rabaa in yar aad imaahaysan dhagihiina marka hore waxaan leenahay cabdiraxmaan cabdishakuur waad maqashaan waxa laga yaabaa si guud inaad u maqashaan haddaba cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga ah waa kuma siyaasadda dadka haddaan laga heshiinin way adag tahay howl kale oo kastoo maamul in la qabto cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ku dhashay degmada buuloburde ee gobolka hiiraan dabayaaqadii lixdamaadkii isla buuloburde ayuu kaga baxay dugsiga hoose dhexe iyo sare ka hor inta aanu ku biirin jaamacadda caalamiga ee afrika ee waddanka suudaan halkaas oo uu ku qaatay shahaadada sharciga national university of malaysia ayuu sidoo kale ka dhammaystay shahaadada labaad ee jaamacadda oo uu ka diyaariyey low comparative federalism wuxuu koorsooyin la xidhiidha qorshaynta hoggaanka maamulka xallinta khilaafaadka dhismaha nabadda iyo xidhiirka istiraatiijiyaadka uu ku sameeyey macadka hoggaanka iyo maamulka ee london ka hor inta aanu siyaasadda ku biirin cabdiraxmaan waxa uu madax ka noqday hay-atul culya oo uu kaga shaqeeyey arrimaha samafalka isagoo intaa kadibna u dhaqaaqay arrimaha siyaasadda waxa uuna ka mid ahaa asaasayaashii Somali Concern Group iyo Somali Diaspora Conference waxa uu madax ka soo noqday xarunta saddexaad ee islaamiga ah ee ugu weyn dalka Ingiriiska ee North London Islamic Center waxa uu soo ahaa tiftiraha mareegta goobjoog iyo majalada Hiiraal isagoo 10kii sano ee la soo dhaafay xubin joogto ah ka ahaa xarunta daraasaadka xiriirka dawliga ah ee Chatham House waxyaabaha taariikhda galay ee cabdiraxmaan lagu xusuusto waxaa ka mid ah gacantii uu ka geystay shirkii dib u heshiisiinta ee dawladdii kumeel gaarka ahayd iyo isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ee ka dhacay dalka Jabuuti sanadii 2009
isagoo madax u ahaa wafdigii isbahaysiga wadahadallada u qaabilsanaa halkaas oo lagu dhisay dawlad midnimo qaran. kunka tallaabo waxaa la yidhahdaa waxay ka bilaabataa midda ugu horraysa. waxaan rajaynayaa tii ugu horraysa jidkeedii inaan saarannahay kunkana aan ku tegi doono. dadka Soomaaliyeed aad ayay u daaleen, aad ayay u dhibtoodeen, gaar ahaan 2 sano ugu dambeysay. intaan ka badan dhib ma qaadi karaan. marka waxaan rajaynayaa taas inay keeni doonto in ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato, dal madax bannaan iyo dad walaalo ah iyo dal midan aan heli doono hadduu Ilaahay yiraahdo. baarlamaanka Soomaaliya ayuu xubin ka noqday isla sanadaas. waxaa dawladdii la dhisay uu ka noqday wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah. intii uu xilkaasi hayay ayuu gacan weyn ku lahaa guulo diblomaasiyadeed oo Soomaaliya u soo hoyday, isagoo markii ugu horraysay muddo 20 sano ah shirgudoomiye ka noqday shirkii wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda carabta ee ka dhacay dalka Masar. cabdiraxmaan waxa uu madax u noqday guddi jaamacadda carabta ay u saartay xallinta khilaaf ka dhex jiray waddamada Suuriya iyo Ciraaq, isagoo hoggaamiyey in khilaafka si degdeg ah loo xalliyo. وبهذه المناسبة الفريدة التي يترأس فيها الصومال مجلس الجامعة نقدم شكرا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة. تنعقد هذه الدورة والعالم العربي يواجه بصفة عامة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة. markii la dhisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sanadii 2012 waxa uu la taliye u noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana loo xil saaray shirkii London, isagoo sidoo kale gacan ku lahaa wadahadalladii dawladda federaalka iyo Jubbaland. intaas kadib waxa uu la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah u noqday ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa iyo midka hadda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay iyo Michael Keaton. halkaas oo uu ergeyga kala shaqeeyay dhismaha dawlad goboleedyada iyo federaaleynta, dib u eegista dastuurka, diyaarinta hannaanka doorashooyinka iyo dejinta siyaasadaha amniga qaranka. kadib wada tashiyo dheer oo uu qayb ka ahaa cabdiraxmaan kana dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu dhisay xisbiga wadajir, iyadoo ugu dambayntiina uu xisbigu go'aansaday in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya 2016. cabdiraxmaan cabdishakuur waa siyaasi aqoon, waya aragnimo iyo sooyaal siyaasadeed oo soo jireena leh, waa xog ogaal xaaladihii siyaasadeed ee uu dalku soo maray. waa geesi, karti iyo dulqaad badan, waa siyaasi dhextaal u ah jilalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya. waa siyaasi galaangal u leh xoogagga siyaasadeed ee kala aragtida duwan ee ka jira waddanka Soomaaliya. waxaan filayaa dadka ku nool magaalada Stockholm iyo gobollada kale dalka Sweden iyo dalal kale ka yimid inay diyaar u yihiin caawa inay si fiican u soo dhaweeyaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur. hadda waxaan bilaabaynaa barnaamijkeena iyo qorshayaal ugu talagalnay xafladan soo dhaweynta ah. barnaamijkan waxaan ku bilaabaynaa aayadaha quraanka kariimka ah, waxaana inoo akhrinayaa Sheekh Cabdicasiis Macalin Cabdullaahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh cabdicasiis macalin cabdulaahi oo ayadaha qur-aanka ah inoogu furay barnaamijkeenna soo dhoweynta hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. xafladan quruxda badan iskama imaan, dadaal baa lagu baxshay isku keenidda dadkan iyo weliba munaasabadaha kala duwan ee barnaamijkan loogu talagalay. haatan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha guddiga qaabaqaabada xafladan ugaas farxaan maxamed lore si uu nooga warbixiyo xafladan iyo heerarkeeda kala duwan. bismillaah الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد أولا مهد سيدنا إلهي كل جزء أسكال سبحانه وتعالى مركاك بعدي وحنو مهد علينا مرتي شرفك وأهريو سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحنو مهد علينا إنه نقول قياسي ولا لم مرتي قلين كرأينا النهاي مركاك بعدي waxaan si aan marna la soo koobi karin ugu mahad celinaynaa dadweynaha sharafta leh ee caasimadda iyo magaalooyinka kale u dhow ka yimid waqti aad u kulul iyo meesha aan ku jirno runtii aad u kulul u dulqaatay annagoo weliba ka sii codsanayna rabna inaan nidhaahno caaway waa habeenkii kaliya oo uu nagu lahaa ugu horreeyey oo na soo martiyey cabdiraxmaan cabdishakuur intaan kulli aniga xusuusto marka caawa kulayl kasta iyo waqti kasta asagaan siinay aan asaga u dayno insha allahu tacaala aan dulqaadka sii wadi doono. intaa ka bacdi waxaan ka cudur daaranaynaa wixii dib u dhaca walaalihii noogu samro noogu dulqaatan aad iyo aad u mahadsan yihiin insha allahu tacaala. bini aadanka lagama waayo maaragtay lagama waayo daldalool iska jiri karaa laakiin inaad maaragtay insha allahu tacaala sidaasna inaan dadaalnay darteed aad maaragtay insha allahu tacaala noogu dulqaadataan. intaa ka bacdi ma raba inaan waqtiga dheereeyo walaalihii diyaarka u ahaa inay hadlaan iyaan u fududayn doonaa insha allahu tacaala. aad iyo aadna waa mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha golaha dhaqanka Soomaaliyeed ee Sweden Cabdinuur Cali Geedi. soo dhaw Cabdinuur. بسم الله الرحمن الرحيم. إخيارة شرف كله ومناسبة عن سكوت تمد لما أنت نوحي نقول السلام عليكم سلامة الإسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال سلام كسكو مركب أبو رئيسة إلى يكون مهدين سكا يكيني أنكو إسلامه ومستعلح عن سكون نمد إلى يبقى مهله عن كعب سن الله سبحانه وتعالى. marka ugu horeysa madasha shirka qabanqaabadiisa guddigii soo qabanqaabiyey oo guddigii farsamada mahad ballaaran baan u celinayaa. inta timidna waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin ajar iyo xasan Allah in ka siiyo. waxa intaa raaca munaasabadan qaaliga ah oo sharafka leh waxaan ku soo dhaweynaynaa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur gudoomiye ama hogaamiye waxaan ku leenahay iswiina ku soo dhawow stockholm ku soo dhawow gaar ahaan. runtii waxaan leenahay maadaama aad mataqaanaa aad sarfey ku maraysay yurub waxaan lahayn waa in soo degdegahayaa laakiin waxaan leenahay waa naga soo daahday. annaguna waa adkaysanay maalinteedii inay maad tahay baa mataqaanaa ilaahay xaggiis ka xugmanaatay. soo dhawow baan ku leenahay. dadkan waxay ka kooban yihiin 5 qaybood oo Soomaaliya waayahay wax ku qaybsanaysay xagga dawladnimada iyo xagga baarlamaanka ay wax ku qoonteysanaysay bay ka kooban yihiin. aniguna ayakan gudoomiye u ahay Sweden walaahi mahadiis. Sweden markaan wax yar oo kooban ka siiyo oo hadda hadalka intaas xaq uma lahayn aan dafo saaxiibada aan ka codsado waxa weeye waa dad isku xiran Soomaalinimo iyo wadaninimo iyo wadajir isku xiran weeye. waxay mataqaanaa ka midaysan yihiin xisbiga aad madaxda u tahay oo wadajir la yiraahdo. marka ayaguna waa wadajir waaba isleedihiinba xisbigaaga iyo kuba
waxaa kaloo jira waa dad madaxda ama dadka mataqaana waddanka ka yimid Soomaaliyeed nooc kasta ha ahaadeen soo dhaweeya weeye oo martiqaad ku soo haya runtii macnaheedu waxa weeye qof kasta oo ma dhaweeyaan waxay soo dhaweeyaan mashaariicda iyo mabda uu wato iyo Soomaalinimada ku soo dhaweeyaan marka dadkan ilmihii ayay gacanta ku dhagan yihiin waxay leeyihiin waddankii ilaahu rabbiyo mataqaana mar kaliya uu noogu baaqo inaan wax lagu dilin laakiin markii la waxba la dilay ama dhib baa ka jira waxay leeyihiin bil iyo laba aan sii joogno laakiin kulligood waa imaan lahaayeen waxaan kaloo ku sheegaynaa inay wataan dhaqaale xoog leh iyo mashaariic iyo shirkado ay fur lahaayeen laakiin dilkaas carigi baasaday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dilkaas in ilaahay mataqaan xal Soomaaliya uga sameeyo kullayba waxaan isleenahay ilaahay waxa ma dulmiyay dulanka adinka la yimid laakiin ilaahu noo naxariisan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba gudoomiye ama hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku soo dhawow Soomaaliya oo wada jirta oo goobta kugu sugaysay muddo dheer waa billahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم دكتور عبد الرحمن سياسي الصوماليات لما مدحدا كله هريرها كفديده بلشده الصوماليات عاو هلكان سفن رقي هوين كاميري سياسي فنانين تعاو هلكان رباكو كاميري سياسي ربا اني عاو فديان سو دوينتنا سياسي وين الصوماليات ان كسو دوينينو فنانينتي جوجته dhamaantiin walaalayaal habeen wanaagsan mudana gudoomiyaha wadajir ee xisbiga mucaaradka Soomaaliyeed Dr. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow ayaan ku leeyahay kal iyo laabaan ku soo dhaweynayaa jacayl aan ku qaban ku soo dhaweynayaa dadnimada aad leedahay kugu soo dhaweynayaa xilka aad qaadi kartaan kugu soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa wabigii Shabeelle oo ku dhalatay biyihiisa intay ballaar leeyihiin ayaan kugu soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynaa balliga matabaan biyihiisa macaanka si u macaan yihiin salaan oo kale aan kugu soo dhaweynayaa inta kadib mudana gudoomiye waxaan kaloo kugu soo dhaweynayaa hilmaan hadal kuma jiro soo dhaweyntii aad ka qayb gashay magaalada Nairobi ee aad ku soo dhaweysay halgamaagii weynaa Cabdikariin Muuse qalbi dhagax ma ahan qalbi mideeya Soomaali mideeya aad ku soo dhaweysay ayaan ku soo dhaweynayaa aniguna saasan ku soo dhaweynayaa calankii qoorta lagu saaray jabhadda gobonimo doonka Soomaali galbeed ayaan kugu soo dhaweynayaa waayo aniga waxa ay dhalay askari odayaygana wuxuu askari labadoodaba dagaalkii 77 ayaa aabahay ninkaygaba ku soo dhaawacmeen ayagoo raba difaacaya dalka gumaysigu naga haysto ayay ku soo dhaawacmeen waxaan ahay gabar askari waxaan ahay gabar halgamaa waxaan ahay gabar Soomaali jecel waxaan u dhaartay dalkayga oo kitaab u maray aniga oo 20 sano gaarin xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed markii la sameeyay aasaasyaashii xisbiga beledweyne laga sameeyay aan ku jiray 14 boqolkaan maray inaan dalkayga dadkayga daacad u noqdo sidaa darteed ayaan jecelahay Soomaali kasta oo wanaagsan qalbi dhagax hadaan idin micneeyo markii la ii sheegay waxa loogu bixiyay qalbigiisa adayga ah oo kaari Itoobiya haduu soo socdo aan ka baqinin oo hadii ciidda iyo dhulka la rogahay aan ka baqinin oo qalbigiisa adeegaya maanta qalbi mideeya loo bixiyay Soomaaliga runtaha inta ka bacdi Dr. Cabdiraxmaan waxa tahay xisbi mucaarada Soomaalidu waxay mucaarad u taqaano iyo waxaan anigu aqaano waa kala labo waayo adduunka dhan waxa ka jira xisbi muxaafid ah oo dawladdu ka dhisan tahay iyo xisbi mucaarada ayaa jira adduunka oo dhan buu ka jira sida Soomaaliya u taqaano ah markii la xisbiga waa mucaarad inuu wax burburiyo inuu wax dilo inuu wax baabi'iyo inuu cadow yahay ay u yaqaanaan anigu ma aqaano waxaan u aqaanaa toosiye tilmaamay inuu yahay mucaarad inuu yahay dawladdii marka halka ka dhisan hadii waxbarashada dalku liidato hadii iskuuladu yar yihiin inuu tilmaamo oo yiraahdo war iskuuladuna waa yar yihiin waxbarashaduna waa yar tahay ummaddu inay wax baratay u baahan tahay hadii ummadda sixir barar ku dhaco oo ummadda masaakiinta u baahato inuu yiraahdo dadka laga daayo sixir bararka waa in ummadda Soomaaliya loo dabacsanaada oo masaakiinta inuu tilmaamahaasi hayaan aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay
siyaasaddu haddii ay qaloocan tahay inuu toosiyo ila siyaasaddii dalka lagu hagilaa taas ma ahan ayaanu aaminsanahay soomaalida aaminsanay mucaarad inuu wax dhibo mucaarad waxba ma dhibo mucaarad waa toosiye tilmaame tuso weeye walaal cabdiraxmaan waxa weeye maanta mustaqbal ayaa dalka soo nin kastoo siyaasi hami siyaasadeed ayaa ku jira waxaad ka leedahay dalka hami ilaahay ha kugu guuleeyaan ku leenahay asagoo khayr ah oo barwaaqo ah ilaahay ha kugu guuleeyaan ku leenahay waa kugu garab taaganahay waana kugu soo dhawaynaynaa waxaan kuu sheegayaa mucaarad haddaad tihiin iyo muxaafid hadday yihiin dalkii Soomaaliyeed wuxuu yiraahdaa raawi hal qala raqdeedii baa lagu soo qamaamo qacdii horeetaan ba qurb haleelo qolo walba qaybta qorraxda ay ku dubateen dalkeena haddaan fiirino xalana waan sheegay oday carab oo shaariba halka kulo cimaamad yar huwan ayaa ordahayo la aawda kadii Soomaaliyeed mid kale oo san dheer oo carabaha ordahay wuxuu la aawda kadii Soomaaliyeed mid Itoobiyana nigtaan soo xirta wuxuu aawda kadii Soomaaliyeed ma shirteeno ma ka fariisateeno ma tiraahdeen wal dalkeena iyo dadkeena baylahay bay ku jiraan ma tiraahdeen oo ma isku tagteen dawladda hadday sida tahay adinka mucaaradka go'aan ma ka gaarteen dalkeena baylahda ah oo maantay maraakiibta waaweyn oo badda taala ee khayraadkii baddeena guranaysa ee ku yar yaraayeen ee shiyaanka ahayeen intii hoose ay qaateen oo wiilasheenu markay la dagaalamaan oo yiraahdaan markab intay hor istaagaan dhahan ma dhaqaaqaysid la yiraa ayagana waa burcado ayagana la toogan oo khayraadka dalkooda lagu xiraayo oo lagu baabi'inayo ma ka tashateen midaas walaal waxaan hadalku ku soo gabaynayaa mudane cabdiraxmaan waan ku jeclahay waan ku soo dhawaynayaa yaa waliba ayay waan ku soo dhawaynayaa waana mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim mudane iyo marwooyinba marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan aad u weyn idil ahaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii cabdiraxmaan cabdishakuur waa hogaamiyaha xisbiga wadani wadajir raalli ahaada xisbiga wadajir iyo cabdiraxmaan cabdishakuur hadalhaynta Soomaalidu aad bay ugu badan tahay waxa keenayna wax kale ma aha waa uu istaagay dulmiga lagu hayo dadka shacabka Soomaaliyeed dawladdan hadda yacyocoodka ah ay ummadii ku caburisay dhab ahaantii haddaan idin sheego magaalada Muqdisho iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya hanaankii iyo mudankii ay lahayd way ka luntay shacabkii wuu dulman yahay waxaa hogaankii qabtay koox u dhaqmaysa sidii maafiyadii Talyaaniga ayaa hogaankii qabsatay ma aha in laga leexleexdo runta oo runta in laga leexleexdo ma aha waxaan u tacsiyeynayaa walaalkay uu istaagay shacabka Soomaaliyeed ee dulman ee gurigiisa lagu weeraray tiradii badnayd ee ku dhimatay ee Soomaalida ahayd ee asaga amnigiisa iyo faamilkiisa ciiladii hoose ahayd waan u tacsiyeynayaa naxariistii jannada Allah ka waraabiyo waxaan xusuustaa horaantii sideetamaadkii ayaan waxaan ku noolaa waddanka Talyaaniga waddanka Talyaaniga waxaa ka jirtay maafiya la yiraahdo Brigata Rosso qisooyinkeedii ay lahayd Chante Giorni di Palermo intii ku dhimatay iyo maafiyada si u maamuleysay exactly sidii bay u maamulaysaa dawladda federaalka haddaadan nala jirin hogaanku wuxuu leeyahay haddaadan nala jirin oo waxa anagu aan sameynayna aadan nagu waafaqsanayn gurigaagaan weeraraynaa reerkaagaan baabiinaynaa kii siyaasiga ahaa waxaa lagu sameynayaa blackmail oo ay u dambeysay afayeenkii galmudug oo intii la qabtay la qaawiyey sawirra laga duubay blackmail lagu sameeyey waa waxyaalaha ay ku kacdo maafiyooyinka ay ku kacdo 1987 ayaan waxaan u wareegay North America oo ku noolaa in badan dhibaatada Soomaalida hadda haysata waa midaan laga hadli karin waxyaalaha ugu weyn ee burburkii Soomaalidu aan ka faa'iidnay waxay ahayd saxaafadda Soomaaliyeed ayaa waxay soo bandhigi jirtay dhacdooyinka iyo waaqica dhabta ee ka dhacaya magaalada Muqdisho waa la caburiyay hadda waxa ka dhacaya lama socono waxay sameeyeen TV walba iyo idaacad walba iyo wariye walba meel baa lagu xiray wax yar haduu gudbiyo ama waa la dilayaa ama waa la handadayaa ama threat baa lagu sameynayaa
siyaasiyiinta u istaagtay cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka mid yahay oo numbers kaleetana ay ku jiraan oo ayagu bareerahooda aan la gabanaynin oo bannaanka soo dhigaya oo naftoodii halis ku gashay oo loo xidhay waxay mudan yihiin in loo istaago oo shacabka soomaaliyeed ay u kacaan oo meel uga soo wada jeestaan anigu hadda waxaan joogaa Sweden Stockholm 1 week baan joogaa aad baan waxaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta cabdiraxmaan cabdishakuur loo sameeyey ee waafiga ah ee ummadda Soomaaliyeed ay soo baxday ee picture-kan quruxda badan iyo dadweynaha aad u tiro badan waxay ka turjumaysaa hanaanka siyaasadeed ee dhabta uu leeyahay waan soo gaabinayaa dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaamta islaamka mar labaad wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax lagu farxo intaan Soomaaliya maanta inay isugu timid meel ay ayagu leeyihiin ay ku tashanayaan kuna soo dhaweynayaan nin walaalkooda anigu siyaasad ma aana gelin waxaan ahaa nin qurbahaas isaga nool gaar ahaan Norway laakiin siyaasaddu waxaa loo dadka gala siyaasaddu waa 3 nooc mid u shaqo doonta iyo mid la geliyo oo nin saaxiib uu geliyo iyo mid markuu arko sida wax u dhacayaan iyo sida wax loo qarribayo oo damiirku uu golaan waayo oo uu galo sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame anigu marka wadadaas 10 sano ka hor uu qaatay ayaan hadda bilaabayaa sababtoo ah waxa dalkii ka socda ma ahan wax la iska fiirsan karo qof walba waajib baa saaran in uu u istaago sida loo toosin lahaa ragga madaxda noo ah waxaan xasuustaa 1991kii ayaa aabahay maxamed saciid gentleman anigoo wada ayuu wuxuu yiri madaxweyne aadan cabdulla xanuunsan mari gurigiisa markuu soo salaamo ka soo baxan aabe madaxweyne aadan cabdulla nin nooc ahaa markaasuu yiri wuxuu ahaa nin la jecel yahay dadna ay ka soo horjeedeen laakiin lama nacbeen waxaan isku dayay wax badan inaan ka sii ogaado 2 arrimood oo iga sheegay kadibna wuxuu yiri taariikhda ku bari doonta 2009kii anigoo jooga Ireland ayaan maalin waxaan nala geeyay jaamacadii aan dhiganay waxayna geysay Guinness meel la yiraahdo library ku yaala oo wax kasta oo adduunka lagu kaydiyo anoo meelay fiirfiirinayo ayaa waa shaashad digital ah leaders meel ay ku qoreedaan taabtay waxa ii soo baxday African leaders markaa riixana aadan cabdulla cusmaan number 1 dhibcaha uu haystay waxay ahaayeen 89 dhibcood madaxweynaha ku soo xigo ee labaayana 39 buu haystay Botswana ahaa ninkii meesha joogan weydiiyay sidan say ku dhacdaan dhawaa ma markaasuu yiri madaxweynahani wuxuu ahaa madaxweyne si dimuqraadi lagu doortay 7 sano iyo 3 bilood iyo 9 cishoona talinayay intuu talinayay ma dhacin uu yiri maxbuus siyaasadeed oo la xiray markuu ka tagayna ma jirin maxbuus siyaasadeed oo xabsi ku jira maalintaas wixii ka bilowday waxaan aaminay Soomaalinimada inay tahay wax lagu faani karo ayadoo dadka Norwejiga iyo dad kale markay weydiiyaan maxaa isku haysatay marka nal dhahaba aan waxaan sheegay aqoon weyn jira sababtoo isku dhaqanaanahay isku diinaanahay isku afaanahay haddana maanta oo dhan waxa weeye waxa la isku dilay oo lagu kala tago wax macnaa ma ahaan wadanada xumaa jirta labadii arrimood aabahay aadan cabdulle sheegay waxa ka mid ahaa doorashadii aadan cabdulle ayaa waxa dhacday uu yiri fanaaniintii waagaas jirtay 8 heesood oo qaarkood lagu ahaanaysanayo ayaa la sameeyay cabdiqays heestii uu sameeyay ubaxii baxayo waadigan abaarsaday cabdi maxamed amuun heestiisii haddii dabkii dhaxamoodo maxaa lagu diiriyaa xasan sheekh muumin hees kaloo cabdi maxamed amiin oo lahaa ma ayna jiran hal hees oo lagu ammaanaya madaxweynaha waagaas wasiirkiisii warfaafinta cali maxamed haraabe hagarey ayaa u yimid wuxuu yiri mudane madaxweyne heesaas lama sii deyn karo marka
aadan caddu wuu la yaabay wuxuu yidhi nimanka aad sheegayso ee heesaha sameeyey iyo aniga muwaadiniinta soomaaliyeed dhegahooda waa u siman hawaana in la sii daayaa taas marka waxay i tusiday inuu ahaa ninku madaxtinimada si uu arkayay iyo sida hadda loo arkay inay kala duwaneed oo ayna ahayn wax isu dhow waxaan aragnay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo sawirkii aadan cadde xafiiskiisa suranaya in fact anigu waxaan ka mid ahaa dadkii markii ugu horreeyay siyaasadda galay ayagoo farmaajaysan waxaan ku galayna waxay ahayd hal eray uu yidhi waxaan ahay aamin iyo aamina ammaanada waa idin ilaalin waxaana caddeyn ah sidaan u ilaaliyay 6 bilood dadkii aaminaan ku jira anoo Norway joogan siyaasad ku jiran waxaan alla ilaahay maanta Soomaali hadiyad bay heshay laakiin qolkii aadan cadde uu surtay oo uu noogu sheegay inuu yahay misbaax baxaya uu fiirsanayo aadan cadde isla markaasna oo jecel yahay inuu ku daydo wuxuu noqday qolkii uu ku go'aamiyay cabdikariin sheekh muumin qalbi dhagax inuu ku dhiibo oo cadawga siiyay wuxuu kaloo noqday qolkii uu ku go'aamiyay shir 20 daqiiqo socda 30 milyan oo Soomaali ah hanti ay lahayd inuu u bixiyo si Suuriya ah waa dekadihii Soomaaliya lahayd waxaan xaqiiqsaday markaas nin dal lagu haleyn karo inuuna jirin loona baahan yahay muwaadin kale in la helo waa taas waxa ii dhaweeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maadaama uu ahaa nin creative ah sababtoo ah marka uu leeyahay waxaan ku dayanayaa aadan cabdulle hadda ka hor waxaa la yidhi cabdirashiid cali sharmaake wasiiradii wuu bedelay 3 mar wasiirada bedelay 4 sano uu ahaa wuu bedelay SOL oo dhan buu qaatay waa sidaan ninka waa wax ka qabata markaas wuxuu yiri cabdirashiid isbedelku uu sameeyaa xamar baa laga maqlayaa haddaan se anigu ka hor imaado ninka jigjiga fadhiya ee Soomaaliga ah iyo kan Jabuuti jooga iyo ilaa Gaarisa midka jooga walwal baa ku dhalanaya oo wuxuu ogaanayaa madaxdii qaranka cusbaa inay isqabsatay dad annagana fiirsanaya weeye marka kuwaas qulubtooda ilaalina marka madaxweynihii sidaas u ilaalin jiray qulubta muwaadinka Soomaaliyeed waxa noo bedelay nin weerar ku ah qulubta muwaadinka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa insha Allah Cabdiraxmaan inaan garab istaagno uguna heelino runta iyo xaqa waa naga badatay dadna yiraahdo walaalayaal waa naga badatay dadna yiraahdo Soomaali godka ku dhacdana ka soo saaray hadhowna danaysta waa naga badatay dad u soo aruursada wax allaale waxay haystaan sidii dalka ay u dhici lahaayeen dadkan u kala fogaan lahaayeen hoggaanna sidiisa waxaa noqon kara 3 sharti qofka laga helo laab furan guddoon adag iyo garaan ay xalahan taasna waxaan rajaynayaa in laga heli doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhageysan doono ummadda Soomaaliyeed isagoo uu arki doono wixii kirtisaas gareynaya wax dhibaato asaga ku ah xukunkiisa Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nin u shaqeeya ee nin ka shaqeysto uma baahna ninka u shaqeynayana sidoo ugu shaqeynaya waa naqaan ninka ka shaqeysanaya sidoo uga shaqeysanayana waa naqaan 30 sano dheeraad ayaa burbur lagu jiray marka hadda kadib taageerada dadka la siinaya hana laga fiiriyo hadii Ilaahay yiraahdo gaar ahaan qurba joogta waa real power rasmiga ah ee Soomaaliya maanta ka jira weeye saameyn badan bay ku leeyihiin waa aragtaan dadka madaxtooyada noo galay banaanka laga abaabulay sidii abaabulka loo wadana dalq baa meesha lagu siiyay innagoon iska fiirin insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynayaa markaan inay noqon doonto markii Soomaaliya isku dubadhaci lahayd lugaheeda ku istaagi lahayd walaaltinimadeeda ay maaragtaa dib u soo ceshan lahayd qarannimadii iyo qabkii Soomaaliya god ku dhacana la badbaadin lahaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo qofka sidaas noqon doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur
warsame bayle ku soo dhawow gudoomiye madaxweynaheena u soo dhawow madaxweynaheena u soo dhawow madaxweynaheena u soo dhawow madaxweynaheena u soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabadee safarkaagu waa qayree iyo samaad barwaaqaadee soo dhawow madaxweynaheenow soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheenow soo dhawow umadaan sannada badan silic iyo dhib soo marayey umadaan sannada badan silic iyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow aad iyo aad u mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa jaaliyadda Soomaaliyeed degan magaalada Stockholm iyo dalka Sweden guud ahaan iyo dadka meelaha kale ka yimidna gablihii oo u mahad celinaya Norway ka yimid iyo gobolada intooda kale waxaan aad iyo aad mabsuud uga ahay runtii soo dhaweynta miisaanka iyo mugga iyo milgaha intaba leh oo lagu qaabilay aad iyo aad ayaan inkaga mahadnaqayaa in badan aan ku taami jiray inaan Stockholm imaado halkan dheer aan ku jiri jiray siyaasadda dhinaceeda ah laakiin maanta ayaan fursad u helay runtii aadan inkaga mahad celinayaa waqtiga oo kooban daraadeed khudbadeeda waan koobayaa marka waa saas la socda waxaan rabaa inaan xuso hadal oo halkan ka sheegay odaygii kamid ah hogaamiyaasha ONLF ku daba qabto hablow aad u amaanay aadan ugu raacsanahay wuxuu sheegay ONLF meesha kaliya ay ka nooleed inay tahay hablaha kaliya waxaan rabaa inaan xasuusiyo golaha wasiirada markay go'aaminayeen ONLF inay argixisad tahay qofka kaliya ay diidane gabar Soomaaliyeed ayagoo raggii wada joogaan Dr. Esther Marian Qaasim kaligeed ayaa inta rekoorka lagu hayo diiday in ONLF lagu tilmaamo inay tahay urur argagixiso waxaan rabaa inaan ka bilaabo sida caadi ihaba dalka Sweden aad joogtiin waa dal Yurub kamid ah waa Scandinavian maxaa meeshaan keenay maxaan u joognaa Sweden maxaa Sweden anaga nooga duwan tahay oo aan marti ugu nahay dabcan waxaan ku marti geliyay waa bini'aadanimo waxaan ku soo dhaweeyay waa bini'aadanimo anaga Sweden diin iyo jinsi iyo tolnimo iyo deegaan midna ma wadaagno laakiin waxa ay nagu soo dhaweeyeen waa ayaga value-gooda iyo principle-kooda hogaagii Soomaaliya la joogi jiray culimada waxay dhihi jireen ilmahan la ka gaalaysiinayaa waana la ka watayo waxyaalo la akhri jiray tiro badan oo tafsiir sharqool u badan laakiin dadkiina hadda ku nool waxa ogaateen waxa marka ay tagtaan oo dalbataan maaragtay magangaliyada iyo sida aad u dhacsanaysaan xaqiina oo maxkamadaha iyo waxaan la yiraahdo maaragtay hay'adaha dawladda aad u qabsanaysaan looyarada iyo garyaqaanada waxa soo baxday Sweden waxay ugu marti gelisay Yurub inteeda kale iyo galbeedkaba inay tahay bini'aadanimo ay nagu marti geli waayeen dawlado kale oo badan oo isaga dhownahay dalka Sweden ama Yurub isaga dhownahay waa heshiis ay ku gaareen in la tixgeliyo bini'aadanimada marka waxaan rabaa inaan halkaas yara dul istaago intaanan tan Soomaaliya u gelin hadda ka hor ayaa saxaabi weyn oo jaliil ah Amr ibn Aas liiraado wuxuu yiri
wuxuu maqlay nin saxaabada ka mid ah oo dhahaya muuse bin cali la yidhaahdo leh dadka roomaanka waa dadkan dee galbeedka hadda aan u naqaano adduunyada waxay gadoomaysaa dadka ayagoo ka tiro badan yaa dunida la rogayaa waa xadiis saxiix muslim ku yaala markaas waan dhageysto markaas ma hubtaa nabiga inuu saa yiri markaas uu yiri ha saas buu yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yiri hadday saas tahay amr ibn caas wuxuu ahaa nin hogaamiyeyaasha waaweyn ee saxaabada ka mid ah ee dagaaladii ugu waaweynaa ee muslimiinta hogaamiyey weliba si aad ula dagaalamay ama ugu hortegay nimanka roomaanka la yiraahdo marka wuxuu yiri 5 sifo ay leeyihiin yaa taas keentay 5 sifo ay leeyihiin ayaa taas keentay wuxuu yiri innahum la ahlamu an-nas 'inda al-fitna yiri waa dad aad u dulqaad badan markay fitnada timaado markay timaado waa dad aad u dulqaad badan oo dulqaad muujiya wa asra'uhum wuxuu yiri ifaaqatan ba'da musiibatin markay jug ku dhacdana waa dad markiiba soo kabta wa awshakahum karatin ba'da al-farra markay dagaal ku jabaanna horay ka soo noqdaan uu yiri oo dad oo dagaalka niyad jibiyo ama dhibaatada ay niyad jibiso ama waxa ku dhaca ay niyad jibiyaan ma aha wa khayruhum wuxuu yiri limasaakiin wa yatiim waa dad u naxariis badan dadka masaakiinta ah iyo dadka agoomaha ah ay u tiri badan yihiin wa daciif iyo midka taagta daran wa khamisatun wuxuu yahay hasanatun jamiila wa amna'ahum min dhulm al-muluk waa dad aan u dul qaadanin gardarrada ama dulanka madaxdooda ka yimaada uma dul qaataan uu yiri marka shantaas sifo ku sheegay Sweden waxa marti u tiin in ogaatiin waaye waa shantaas sifo ay leeyihiin dadka Yurubiyaanka ah ama galbeedka ah oo saxaabigaas xilligaas sheegay ko waa maxay waa dad jab ka soo kabo haddaad fiiriso taariikhda Yurub markaa fiiriso oo ka soo bilaabatay dagaaladii ayaga dhexmaray oo dagaalkii diimaha 30 sano dagaalamayeen diimaha kala duwan Katooligii iyo u dagaalamayeen iyo maaragtay iyo Protestant markaa fiiriso dagaalkii ayaga dhexmaray kacaanada dhiig ku daatay kacaankii Faransiiska iyo kacaanadii soo maray markaa fiiriso dagaalka wada adduunkii kii labaad 100 milyan euro uga dhimatay gaajo colaad dhibaatada ay soo mareen saasay tahayna waa ka soo kabteen oo waa dadka maanta adduunka ugu ilbaxsan ugu nolosha fiican maxay ku kasbadeen waa intaas marka aniga waxaan rabaa inaan dul istaago qodobka ah wa amna'ahum min dhulm al-muluk waa dad aad u diida dulumka ka yimaada dadka ayaga xukuma say dulunkaas u diidaanna waxay u sameysteen institutions u sameysteen hay'ado dawli ah oo aragteen oo dimuqraadi ah oo qofku xor yahay xor muxuu u yahay fikirkiisa xor muxuu u yahay aqeedadiisa xor muxuu u yahay siyaasadda meesha uu ka gelayo xor muxuu u yahay ra'yigiisa inuu cabiro intaasay ku heshiiyeen inay tahay sida lagu celi karo because markii hore boqorada waxay ku celinayeen dagaal Soomaa dagaal la qaaday boqorku waa la jibinay madaxa laga goynay asagana wuu soo dagaalamayay si u socotay waxa lagu heshiiyay boqorka in lagu celiyo muassasaad ama institutions ama hay'ado dawladeed in lagu celiyo ayaa lagu heshiiyay hadda marka dagaal lagu ma celiyo dadka madaxda dagaal lagu ma celiyo waxa lagu celiyaa hay'ado waatii ninkii ahaa Montesquieu ninkii Faransiiska weynaa wuxuu yiri awooda celis waa ninka keenaa la father of separation of powers awoodaha in la kala saaro ninkii philosopherkii keenay ahaa awood wuxuu yiri awood kale baa ka celi karta awood maxaa ka celi kara awood kale marka ayaga waxay sameysteen nidaam dawli ah oo ku dhisan hanaan check and balance awoodaha ay isjeegarayaan oo baarlamaanka uu la xisaabtamayo xukuumadda mucaaradka uu jeegaraynayo xidda xukunka markaas haysata miidiyana oo xor u yahay inuu dawladda dabagalo oo ku dabagalo qaladaadkeeda saxo intaas waxa sii dheer intaas oo kale waxa joogto hay'ado lagu magacaabo watchdogs oo madax banaan oo dawladda maanta oo dhan dabagal ku haya iyo la xisaabtan taasay marka ay adduunkii intiisii kala hadda uga hormareen nidaamkaas marka ay ku diidayaan dulanka uga hortagayaan ay sameysteen hanaankaas uu ku dhisan waa nidaamka adduunka lagu wada taamayo oo qof walba inay gaarto ay rabto annaga maxaan uga duwanahay marka dadkeenan dunida saddexaadkii maxaan dunida saddexaad u nahay maxaan uga duwanahay waxaan uga duwanahay anaga taas ma dhisin annaga waxaan dhisnaa qof shakhsiyaan dhisnaa
shakhsigaas oo ku dhismaya ama madaxweyne ama hogaamiye ama ra'iisul wasaare wuxuu rabaa dal xukuma wuxuu sameeyaa institution iyo hay'ado ma dhiso wuxuu dhisaa hay'adaha dawliga wuxuu dhisaa inay asaga hoos yimaadaan ciidanka asaga ku xirnaado booliiska asaga ku xirnaado hay'adaha nabadgelyada asaga ku xirnaadaan hay'adaha dawliga ah ee maamul ka shaqeeya bureaucracy-ga iyo ka shaqeeya service-ka dawladda asaga inay hoos yimaadaan intaas ayaa lagu sameeyaa nina ii sheekay odayga oo dadkii dawladdii hore ee kacan ka tirsanaa wuxuu yiri su'aalan weydiiyay waxaan dhahay maxay wasiirada xilalka haya dawladda uga goosan jireen nin wasiir oo xil haya yaa dawladda ka tagay oo dibadda mucaarad ka noqonay dawladdana macnay lahayd waagaas marka wuxuu yiri waa ii sheekay nin odayga Allah naxariisto uu dhintay mar magaciisa aan sheego wuxuu ugu yiri marka uu ka shakiyo dhahay madaxweynaha wasiirada kamid ah wuxuu yeelayaa wuxuu wacayaa oo dhahay wasiir ku xigeenka wuxuuna wacayaa agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada imaanayaan markaas waxa la wacayaa wasiirkii wasaaradda haddana meesha la isugu keenayo madaxweynaha wuxuu leeyahay leeysoo geliyo wasiir ku xigeenka uu galaya uu canaanaya wuxuu leeyahay wariyaa wasaaradda maxaa wasiir ku xigeenka kaaga dhigay waxa ka socda ma ogid waxaana wasaaradda ka socda wixii uu tuhunsanaa markaas asaga madaxweyne aniga maan ogeyn saas ma ah wuxuu leeyahay hadda ogow wasaaraddan adaa iga wakiila waxa ka socdan waa in ay soo sheegtaa iska tag uu leeyahay wuxuu wacaya agaasimaha guud ee wasaaradda wariyaa wuxuu leeyahay soo adiga agaasimihii guud oo ninkii shaqada technocratka ii hayso adiga ma tid wasiir waa jaga siyaasadeed wuu tagayaa wasiirku wuuna baxayaa ninkii bureaucracy-yada iyo hay'addii iyo hanaankii dawliga meesha hay adiga waxaana wasaaraddii ka socda ma ogi madaxweyne seeda ku ogeyn maanta ka bacdi kaama yeelayo inaad la ii soo sheego war dibadda ka yimi wasaaradda adiga iga keeni shaqadaada qabsee soco hadhowdii wasiirka markii gobolka dhici waa la iska fasaxa waxa la iska tag madaxweynaha ma arkayo wasiirkaas wuxuu yiri wasaaraddu joogi karaa ma joogi karo wasiir ku xigeenkiisii iyo madaxweynihii waxaa la shiray agaasimihiisii asaga dhan wasaaraddu wuxuu ku joogayaa marka qalqal iyo cabsi nimanka maxaa loo soo sheegay maanta oo inuu is yiraahdo hanaankaasay ku dhisaan ciidanka saas oo kale waay sargaal kasta midka ka hooseeya yaa lagu dhisayaa inuu marka loyalty-ga madaxweynaha iyo wax walba ku dhisan yihiin marka yaa la dhisayaa institution ma dhisaya waxa la dhisayaa qof la dhisayaa waxaa la yiri marka nimanka cilmiga dawladnimada dhigaa waxay dhaheen ayaga un baa duminaya haddana sababtoo ah accountability iyo isla xisaabtan iyo daahfurnaan iyo dawladnimo meesha ma taalo ayaga markay arkaan uu daciifo ninku uu daciifaya madaxweynaha marka uu daciifo waa waxa ku dhacay bin Ali Tunisia waa waxa ku dhacay Qadaafi Liibiya waa waxa ku dhacay ina Asad Syria waa waxa anaga 22 sano ka hor nagu soo dhacay dawladaha burburo dhan oo arkaysaan nidaam waxay dhiseen regime ayaga ay center u yihiin dhaxda ka taagan yihiin oo qof walba asaga soo gasho qof walba asaga ay ku dhamaato kuwaas marka daciifto markasta aad daciifto alle cabsiyay meesha kuula joogan jacayl iyo adiga rabitaan kuula ma joogan markasta oo daciifto oo waliba aad u baahato ajnabiga dibadda anaga wana dawladdeeni 80 markay timid oo dagaalkii 77 laga soo noqdo lagu jabay waxaan ka wareegnay nidaamkii social scientist waxaan u wareegnay nidaamkii galbeedka IMF iyo World Bank adjustment liisa lagu keenayo tak waa kan haye shuruudaha lagu hordhigay ama ka bixi kartaa sida shuruudaha lagu wado marka dambe waxa leeyahay dalka ma wadi kartid iska tag sorry halkaas ay imaanaysa marka ku arkaan dadkan hay'adaha adiga aad isku hareereysay inaad daciif tahay dibadda laga soo galay gudaha dumi rabto nin walba wuxuu isleeyahay kistaada la goos halkaas ay dawladnimadii ku dumaysaa laakiin dalalka ku dhisan hanaanka dimuqraadiga ah ee daafurnaanta isla xisaabtanka iyo check and balance iyo accountability ku dhisan waligood ma dumayaan daas waa dawladda Belgium ay 2 sano u ahayd madax la'aan oo coalition ka dhisi waay laakiin wax istaaga mal hadii Sweden xisbiyada coalition-ka ay ku guuleysan waayaan inay dawladda dhisaan 3 sano haday tahay xataa wax Sweden ka istaagaya ma jiraan because dawladda institution-ka dhisan annaga wixiina dumiyay ma rabno inaan ku noqono waxaan rabnaa hanaankii hore ka duwan inaan wax ku dhisno si ay dawladnimada mar kale u dumo xageen taaganahay hadda waxaan taaganahay markii dawladdii duntay kala burburtay waxaan taaganahay dawlad maxay ka kooban tahay dhul madax banaani oo dawladnimadu taagan tahay qaran muxuu ku kooban yahay dhul shacab
iyo madax bannaani sovereigntiga waa stateka waxa ilaaliya waa xukuumadda iyo dowladda waxa haya hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay sovereigntiga iyo madax bannaanidii waa noo qaybsan tahay midba meelay taallaa xaggaa waxaa u xigay walaalaheen somaliland oo sheegay inay ka baxeen bad go-een gooni isku taageen marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qolowba maamulkeeda gooniya u haysataa macnaheedu maxaa waaye madax bannaanidii way qaybsanta hal meeloo laga xukumo ma jirto maxaa kaloo qaybsan resourcekii waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay weli laysma aaminin dadka weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaaddii sokeeye is-aaminaaddii kama imaanin taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo ra-iisul wasaaraha wasiirka wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo waxa saas loo sameeyey waxaa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha laysku wada hayo 4.5 aa la keenay dowladnimadeennii baarlamaanna waa jiraa xukuumadna waa jirtaa laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa la iska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa weli marka dadkii boogii inta la dhayay is aamineen midoobeen dowlad mida dhisteen ma aysan dhicinin waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa maxaa laga rabaa inay dadka isku raadiso waa kow ogolaato waxa la yidhaahdo consensus building inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka inay ogolaato tala wadaag isla guddoon talada in la isla guddoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabar iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa oo ku matali karto dadka Soomaaliyeed inta ka horeysa ma haysatid waxaan u soconaa wadadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyada la yiraahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay yaan jidkeedii aan haynaa marka maxaa loo baahay intaan wadadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam ku qabsado baabuurka ma ku riixi kartaa inta doonto oo shay la ramay waa inaad 20 inta soco kartaa waa gurguuranayna hala yaabinina gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruufta sida ah waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda maxaan ku soconaynaa isla guddoon iyo is ogol annaga labaas hal ku dhigno ah haddana wada jir isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol saasa lagu wadayaa wax kasta waa in la isla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaarayo kaasaan u baahanahay maxaan kale u baahanahay waxaan u baahanahay inaan xoojino dhaqanka dimuqraadiga ah oo muxuu yahay dadku inay xor yihiin fikirkooda iyo aragtidooda xor u yihiin saxaafaddu inay xor tahay political association wax la yiraahdo dadku inay ka mid noqon karaan xisbigay rabaan iyo aragtiday rabaan inay raaci karto taasaa daawo noo ah tusaalihi oo gentleman sheegay adan Cabdulla Cusmaan Allah u naxariiste Soomaaliya annaga waxaan ahayn wadankii ugu horeeyay Afrika si dimuqraadi madaxweynaha loo doorto xukunkana uu ku wareejiyo si dimuqraadi ah marka waa ku faani karnaa waa taariikh aan leenahay tiyaan u baahanahay inaan soo celino oo xorriyadda ra'yiga iyo xorriyadda qowlka labadaba ay noqdaan wax ah aqoonta inay noqdaan laakiin maxaan ugu dhaxadeertaan dawladdeennii waxay rabtaa nidaamkii aan sheegnay ee kalitaliska ah inay dib u soo celiso waa faham qaldan oo dawladnimada maxaa kaloo na haysta faham qaldan oo kala haysto xagga diinta oo nimanka shaab leeyahay hoggaanka yihiin maxaan u dhaxaynaa marka annaga dhagax iyo waxaan u dhaxaynaa meel adag wixii ingiriiska bidwi maxaa la yiri rock and hard place u dhaxaynaa dad dawladnimadii qalad u fahamsan ee dawladnimada u arka in asaga laga amar qaato cirkii warkiisa diidaa lagu duulo la xiro la xabadeeyo dadkiisa dhiig laga daadiyo jagada laga tuuro oo ogtiin gudoomiye baarlamaanka jagada laga tuuray maamul goboleedyada la isku dayay jagada in laga wada tuuro gudoomiye gobolka laga tuuray ana la soo weeraray senator gurigiisa loo dhacay dhaqankaas loo haystaa dawladnimada inay tahay kaas waa midka shabaabka waay oo ah xoog ayaan ku qabadsiinaya waxa aniga rabo marka anaga ma rabno nin magac dawlad sheeganaya raba inuu dadka xoog wax ku marsiiyo waxaan kale oo rabin nin magac diineed sheeganaya ee dadka
raba inuu xoog wax ku marsiiyo labadooda maxay sheegtaa marka ninna wadani ninna islaam maxaa soo baxay marka kaligiis wadani iyo kaligiis islaam nin kaligiis wadaniya oo leh anaa wadaniya oo kule sanad iyo bar ka hor wadaniyad ma jirin madaxweynaha soo istaago wuxuu yidhi ilaahay ku dhaashay sanad iyo bar ka hor maa wadaniyad jirto u dhahay wadaniyadaasay ka bilaabatay haddaad warsato cali dheere shabaabka ninka u hadlo wuxuu ku leeyahay islaam kaligeena ah marka soomaaliya u dhaxaysa kaligii islaan iyo kaligii wadani ma rabno marka annaga waxaan rabnaa diinta islaamka oo diintii la yaqaanay ee toleransiga iyo dulqaadka lahayd yurub markii yahuudda la xasuuqo ogtihiin xaggay magan galeen khilaafadii cismaaniyiin turkiya magan galeen dadka soo dhaweey muslimiintii ahay toleransiga muslimiinta balfiiri iyo dulqaadkooda diintii xaniifka ahayd ee suubaneed ee dulqaadka lahayd oo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhahayay iladooda qof uu qasba nabiga ma jirto laa ikraha fi diin qasab maaha diinta nabi nuux ay lahaayeen markuu la dooday qoomkiisa tiishugii dhiib markuu la dooday qoomkiisa ay dhaheen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa akarta jidaalana ay dhaheen waana la dooday doodiina waad nooga adkaatay diinta islaamku waa isqancin waa isla doodis waa inaad ku qanacdaa cid kuu qasbi karta mare laguguma qasbi kara diinta saasoo kale dowladnimaduna qasab ma ah waa ikhtiyaar waa choice marka annaga waxaan u baahannahay inaan si nabada u muqaawamayno oon uga hartagno kaligiis wadani iyo kaligiis islaam labadaas ma ogolo soomaaliya markii halkaas marayso waqtigoo kooban waan soo koobaya hadalkayga maxay u baahan tahay haddii qof annaga ka mida maanta badda inta tago oo ku dhaco qof bad ku dhacay aan aragno ma qofaan dabaal aqoonaan u diraynaa ma dhici kartaa inuu qof dabaal aqoon soo badbaadiyo waa maya soomaaliya maanta meeshay taallo waxaa dhigay hoggaan xumo waxayna u baahan tahay hoggaan kartideeda leh dadnimadeeda leh aragtideeda leh vision meesha uu cidda u raraya yaqaana waxaan ka xumahay dhaqanka soomaaliyeed ee sanadahan soo socda wuxuu ahaa qof aan la aqoonin heybtiisa aragtidiisa siyaasadeed visionka uu leeyahay meelaha uu ka taagan yahay qadiyadaha soomaali taabanaya yaa loogu duugayaa qalinka la leeyahay hogaamiyihii dhasha adiga tahay cid soo tijaabisayna ma jirto cid soo tijaabisayna ma jirto meesha uu soo maray waxa uu soo qabtay waxa uu u taagan yahay waxa uu higsanayo cid taqaan lama arko waxaan rabnaa annaga dhaqankaas inaan bedelno oo qofka lagu xisaabo aragtidiisa siyaasadeed message-ka ama aragtida oo wado sidoo dadka ugu gudbi karo una deeqsii karo yaa loo baahan yahay shabaab waxay ku jiraan ogaada waxa waaye waa taagdarrada dowladda waaye awood ayaga ay leeyihiin maaha sababtoo ah dowladdii vision ay uga hortagto shabaab ma laha vision ay ugu dulqaadato dadka ka ra'yi duwan ma laha vision ay dowladnimada ku xoojisa ma laha vision ay dimuqraadiyadda salka ugu dhigta ma laha markaasay maalinba meelaa lagu dhacayaa maxaa yimid marka hadda aan hadlayno hay-adihii dowladoo dhan madaxay iskula jiraan guddoomiyihii baarlamaanka waa la raacdeeyey wasaaraddii gaadiidkii cirkiga dhulka ayada iyo hay-addii maaragtay madaxay iskula jiraan civil aviationka oo duulista hawada wasaaraddii maaliyadda labadii wasiir waa kuwa waraqada internetka iskaga qoraya hay-addii nabad sugidda waa kuwa taliyaashii ku-xigeenadii liyo shaqadii waa liika joojiyey xaafiisyadoodiina la jabsaday waa tali ku-xigeenadii nabad sugidda eday marka dowladdii dhambe waxay noqotay madaxa inay haysato maxaa keenay institutional fighting la yiraahdaa waa dagaal ka dhex socda hay-adihii dawliga ahaa because dhaqanka lagu yimid ayaaba dagaalkaas ahaa dhaqankaas waa kii guddoomiyaha baarlamaanka xilka looga tuuray waa kii guddoomiyaha gobolka xilka looga tuuray waa kii dadka lagu weeraray waa kii maamul goboleedyada midba maalin hadda midka ugu dambeeya dagaalkii socdan oo yahay madaxweynaha jubbaland haddaa ogtiin haddii kaleba oo har iyo habeen filla soomaaliya lagu hayo xilkaa laga tuuro axmed madoobe wax kale lagama shaqeeyo yaa naga soo horjeeda ninkaas xilkaan ka tuuraynaa ma ogolin in xilka laga tuuro madaxda soomaalida ee deegaanadooda dadka jooga ay soo doorteen waxaa xilka looga tuuri karaa oo keliya nidaamkii ay ku yimaadeen oo ah
baarlamaankooda inuu u vote gareeyo laakiin abaabul laga sameeyo muqdisho oo qabiilaysan abaabul laga sameeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhexdiisa in xukun looga tuuro waxay keenaysaa uun fidnada inay soo xoogaysato Soomaalinimadana sii fogaato dawladdii aan raadinaynana ay godar ku sii dhacdo saas daraadeed waan ka soo horjeednaa arrintaas iyada waxaan kaloo ka soo horjeednaa in rugni kamida arkaanta islaamka ee xajka ah in la siyaasadeeyo maanta oon hadlayno wali qof Soomaaliya fiisa xaj uma soo bixin dawladda Soomaaliya siyaasadaysa shirkadihii waday xajka ee dawlad la'aan waligeed Soomaaliya xaj kama istaagin maanta waxaa laga kari laayahay madaxtooyadii war xajkii fasaxa oo dadkii muslimka ah Soomaalida ah xajkii ha soo gutaan war maxaa noo dhiman hadiiba xajkii hadda qalqiil oo ku jiro haddii isku socodkii magaalada qalqiil ku jiro haddii dadkii xoogsatada ah aysan soco karin haddii haweenadii isbitaalka ay ku dhali karin haddii dhalinyaradii ay iskooladii jaamacadaha aadi karin waxa noo dhiman maxay tahay waxaan u baahanahay inaan la nimaadno wax la yiraahdo civil resistance macnaheedu waa maxay muqaawamo madani ah rabnaa oo ah mid nabadeed peaceful dadka ku jira gudaha Soomaaliya waa cabursan yihiin waa dhibaataysan yihiin maray nolol maalmoodkooda la dagaalaan mar shabaab oo dhinacan ka soo xabadeeyo ka soo dilo maray dawladda dhinacan jidadka ka xirto ka isbaaraysato dadka waa cadaabayin dadkii u hadlahay waa idinkii hor fadhiya iyo kuwa la midka hal la maqlo codkiina idinka nabad jooga idinka hadda aanan amnigiina qalqiil ku jirin dadkii u hadli lahaa ee dadkaas dhibka iyo culayska hor qaadi lahaa runta u sheegi lahaa madaxda Soomaaliyeed si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah waa idinka idinka fadhiya dadkiina dibadaha jooga inaad dib oo isku habeysaan oo aad la timaadaan halgankaas isaga ah lagu raadinayo dadka in laga dul qaado culayska saaran waxaan u soo noqonayaa arinta gobolkeen oo marayo oo meesha aan ku gabagabay doono duulayra gobolka geeska Afrika isbedel xoog leh ka socdo oo dawladda Itoobiya ka dhex socda oo xukunkii iyo taladii Itoobiya isbedelay Itoobiya waxay maraysaa marxalad transition ah gobolka wuxuu marayaa marxalad transition ah Soomaaliya oo 20 iyo dhowr sano ka hor dagaal sokeeye ka bilowday meeshii la rabay ayada inay u noqoto hormood inay dadku isku tanaasulaan inay dadku iswalaashadaan inay dadku is ixtiraamaan annaga maanta gobolka ugu hooseeyna ogaada waa ka Uhuru Kenyatta u baaqay Raila Odinga oo la heshiiyey oo yiri aan ka wada shaqeynaa midnimada iyo wadajirka Kenya waa ka Abiy Ahmed irdaha u furay qof kasta oo mucaarada oo yiri soo dhawaada ka qayb qaata dib u dhiska Itoobiya gobolkaas bedelka uu ka socdo oo la ogaaday xilligii iscaburinta iyo xilligii maaragtay kala talisnimada inay Itoobiya nafteeda socodsi weysay oo ciidanku ugu xoog badan leh oo nabad sugidda ugu xoog badan leh oo wax kasta oo awood leh wiilal dhalinyaro ah oo Itoobiyaan ah oo Oromo u badan ya xabadkooda dabaabaadku u dhigay si nabadgelyo leh xukunkii uga tuuray nidaamkii meesha ka jiray kuwaasaa la rabaa dadkii ku daysanaya idinkiina noqotaan ogaada Oromada sidaan annaga oo laf u leenahay iyo oo laf u leeyihiin أنتم باكل دونا أوروبا Liberation Front يا لهذا وجبهته بيسانو دجالن حكومك كمتورين أيجا أن ما كي ثلاثة هيستي وحكتوري دلني يرو حبت كأودي سنة بتجليئة عدكوا ذا كسب بعي أيجا أنا حلق في دبات وجيسن دبت إيه جودة سكاشدين أنا جا إسبدل كانوا بعناي إيه مستقبل كأن صومالي كأركو وليبت تضبعات بقول كي دلني يرد عن كأركو ودن كدتك تواتي بقول كي بعيقة وحوايه إنه إسبدل نوع عاسى أو سفكة أو نبتجلية أو مدنية أو البحنماء إنه أصاب بحان وجونا قيب قاتان إسبدل كسياسات يهنان كهرمانة السياسات دل كودا إنه يوا قيب قاتان ما حمل كرتو صوماليا وليس إنت كبدن إن عاصمة دينا لحيرو
ayadii dhan shutdown la lockdown la geliyo goboladiina duulaan siyaasadeed lagu qaado ma xamili karno dadkii hor istaagi lahaa yaad ka mid tihiin ku hor istaagi lahaa si nabada oo dimuqraadi ah wax dhiman lama arko in la isku soo dawladda ay naga dunto kaliya dhiman sababtoo ah ayadaa gudaheediisaan sheegay hadda iska dagaalaysa waxaan aad iyo aad mar kale inkaga mahad celinayaa soo dhaweynta sharafta leh ee karaamada leh oon marka xasuusan doono reer Sweden annaga xisbiga wajir haddaan nahay aragtideena taasaa sal u ah inaan hiigsano Soomaalinimo inaan hiigsano is-ogol iyo isla gudoomin inaan hiigsano wadan nabadeed oo dimuqraadi oo sifig ah waxaan ku martiqaadaynaa dhammaantiin inaad ka mid noqotaan xisbiga wadajir xaruntiisa ku biirtaan nimanka dhalinyarada ah away yalaxow Umar Ali yalaxow iyo dalmar dhalinyaro ila shaqaysaa jirto inaad dhalinyaradaas xiriirka ay noqdaan aad ku soo biirtaan xisbiga aragtidiisa maanta inaan soo bandhignaa jeclaan waqtiga cariiri nagu noqday waxaan u taaganahay iyo waxa uu xisbiga yahay intaba aad iyo aad aan kaga mahad celinayaa mar kale soo dhawaada waa mahadsantihiin waxaan isku ognahay Soomaalinimo waxaan isku ognahay nabadgelyo si nabadina wax ku raadino oo dadka Soomaaliyeed aan u wada shaqeyno haddaan joogno gudo iyo dibadba waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijka intaynan soo gabagabayn waxaan xasuusinayaa xisbiga wadajir waxa uu leeyahay website la yiraahdo wadajirparty.com wadajirparty.com halkaas ayaad ka daallacan kartaan macluumaadkiina dhinaca kale waxaan u mahad celinaynaa guddiga qabanqaabada barnaamijka soo abaabulay oo ay ka mid yihiin ugaas farxaan maxamed dhoore cabdirasaaq xaadir xasan cumar cabdulle cabdiqaadir shire galbeete arda warsame xaliimo jaamac cabdi cabdullaahi iyo cumar cali cumar iyo intii kale aan ka tegay ee barnaamijka qayb ka qaadatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye sadaal qurxooniyo sinaan iyo cadaalad baan sadaal qurxooniyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa qayrey iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow umataan sannada badan silic iyo dhib soo marayey umataan sannada badan silic iyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow umataan sannada badan silic iyo dhib soo marayey umataan sannada badan silic iyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow
madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado kii samaaha wade soomaalida mideeyayo kii samaaha wade soomaalida mideeyayo waa ku daba soconaaye suran quraanna wada mariyey soo majeestihiyo soomaalidu u siman tahayow safarkaagu waa qayreye iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow umadaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey umadaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano kuu sacaanbatumayaane adigay ku sugayaano kuu sacaanbatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow umadaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey umadaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano kuu sacaanbatumayaane adigay ku sugayaano kuu sacaanbatumayaane soo dhawow